askari ka tirsan ciidamada booliska maamulka ee dalka Kenya ayaa maalmahan hareeyay hadalhaynta shacabka kadib markii uu si geesinimo leh u fashiliyay faldhaca. Josh Ombati ayaa naftiisa halis u geliyay si uu hanti ugu badbaadiyo nin shacab ah oo ay tuugo isku dayayeen inay ka dhacaan gaari iyo lacag. Askarigan ayaa isaga oo jidka socda la kulmay gaari socda oo nin laga tuuray, wuxuuna isla markiiba bilaabay howlgal uu arrintaas kula tacaalayo. Ninka gaariga laga tuuray ayaa markii hore la socday 2 nin oo kale, kuwaas oo ku khiyaamay inay alaab raqiis ah ka iibinayaan. Amos Sharo oo aan ka warqabin shirqoolka loo maleegay ayaa soo qaatay lacag 700,000 ah oo dalka Kenya ah iyo gaarigiisa si uu alaabta la sheegay u iibsado. Hase ahaatee 2 nin oo tuuga ahaa ayaa Mr. Sharo gaariga ka tuuray si ay ula baxsadaan gaariga iyo lacagta. Askarigan oo xilligaas hubaysnaa ayaa si kadis ah ula kulmay dhacdadan, wuxuuna goor dambe warbaahinta ku yiri, anigoo damacsan inaan jidka ka gudbo si aan u qada doonto ayaan dareemay gaari soo socda oo uu isqabqabsi ka socdo, isla markiibana waxaa laga soo tuuray nin. Ombati ayaa durba qaatay gaari taksi ah si uu tuugada uga daba tago, wuxuuna dadaal dheer kadib ku guuleystay inuu gacanta ku soo dhigo isagoo kaligiis ah. Shacabka Kenya ayaa si weyn ugu hambalyeeyay askarigan oo ay doonayaan in hadda lagu daro askarta geesiyaasha ah ee uu madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu qorsheynayo inuu guddoonsiiyo bilad geesinimo. Mr. Ombati ayaa bishii Maarso ee sanadkan ku guuleystay inuu badbaadiyo dad rakaab ah oo saarnaa gaari dadweyne oo ay tuuga afduubteen.